degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa laga daafuray hay'ad ama mu'assaso khayri ah oo ka shaqeynaysa waxbarashada iyo arrimaha bulshada sida Ikraan warkan ay ku faahfaahinayso. qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka qayb galay xaflad ka dhacday degmada Cabudwaaq oo lagu maamusay furitaanka mu'assasada khayri ah oo qaabilsan waxbarashada iyo horumarinta bulshada. xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa kaloo ka qayb galay maamulka degmada, culimadiinta, bahad waxbarashada, barayaal iyo arday jaamacadda ummadda fariceeda Galmudug iyo marti sharaf kale. furitaanka mu'assasada Tawfiiq ee qaabilsan waxbarashada iyo horumarinta waxaa soo dhaweeyay qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmadaasi. mu'assasadan oo sidoo kale ka qayb qaadan doona dhiirigelinta dhalinyarada. waxaa furitaanka ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdiwaaxid Maxamed Jaamac. waxaan ku faraxsanahay runtii in caawa halkan laga daafuro hay'adan qiimaha badan ee Tawfiiq. waxaan bulshada ugu baaqaynaa waxa weeye in cid kasta ay ka qayb qaadato waxbarashada diini iyo maadiba leh, dacna ma leh, haween iyo rag ma kala leh, kulli in laga qayb qaato. waxaan runtii bogaadinaynaa cid kasta oo soo qaban qaabisay oo soo hal abuurtay oo runtii noo keenta hay'adatan. annagana waxaan ku ballan qaadaynaa dadweynaha halkan ku dhaqan inaanu ka qayb galno, aan ka dhiirigelino xagga dhaqaalaha, xagga ku soo biiridda iyo xagga muxuu ahaa ka qaybgalkaba dhammaan. adinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin.